wixii ay qaban lahaayeen waxa ka horeeya maxaa loo qabtay markaad hasha ka rabto inay ku canabadiso waa inay hasha joogto bay oo fiican waa inay hesho daaq waa inay daryeel hesho waa inay hesho ma aragtay wixii ay ku canabadin lahayd marka haddii aan idhaahno maxaa dhalinyarada Soomaalidu ay qaban karaan si ay ma aragtay dib u dhiska iyo dadnimada iyo meesha abaartu tahay wixii kaga aadan ay u qabsadaan waxay ku noqonaysaa in ma aragtay aan eegno maxaa dhisan maxaa ma aragtay ma jirtaa awood iyo karti iyo capability dhalinyaradu ay kaga qayb gali karaan ma aragtay taabagelinta dowladnimo waarta oo macno leh wax badan bay qaban karaan adduunyada runtii dadka shaqaabeeyay ee wax ka bedelay masiirka ummadahoodu dhalinyaro u badan yihiin sida dabeecaddu tahayna waa sidaa oo xooggii iyo maskaxdii maaragtay fresh tahay iyo abateedkii loogu badheeri lahaa khataraha iyo ma aragtay isku qaadida waxyaabaha humaaga cabsidu inaga hortaagan yahay iyo dee haddii historically la eego traumada iyo dhibaatada badan ee lasoo maray cidda ugu badan ee riiqdeedii ku hadhay welina la tacaalaya marka waxaasoo dhan la isku daro aan waxaan isleeyahay awoodda keliya maanta Soomaali badbaadin kartaa waa dhalinyaro maskaxda xorka ah oo damiirka xorka ah oo xorka ah qiyaasaha iyo mafaahiimta ay kusoo dhex qoreen oo qabiilkuuna kala weyneyn wax walba damcooga shaksiga iyo wixii isaga iyo faamilkiisa iyo qabiilku ka dhashay inuu wax la raadiyo xorka ah fikradaha faasidka ee qofka uun ku soo urura oo xor u ah in ay u fikiraan si ummadeed si sare si damac sare leh oo maaragtay nolosha dadku ka dhashay iyo dalkiisa wax tari karta marka haddii maaragtay fikradda noocaasi ay jirto oo ay shaamil tahay ballaaran tahay ku baahsan tahay dhalinyarada Soomaalida dhexdeeda waxaan isleeyahay wax weyn baa la qaban karaa oo maaragtay maantana way u diyaarsan yihiin dhalinyarada Soomaalida oo maaragtay waxoogaa fatiig baa jira waa laga daalay dhibka soo noqnoqota iyo maaragtay fikradaha iska kooban ee soo noqnoqda iyo mushkilad weyn xal yaroo temporary in lagu abaaro way daalkaasa aad ugu baahay Soomaalida dhexdeeda dadka ugu badan ee fatiigga qabaan waa dhalinyarada marka xilligii wax la qaban lahaay iyagu ay maaragtay sheegan lahaayeen awoodda wax qabadka ee ay halkay joogaan intay ka dhaqaaqaan u dhaqaaqi lahaayeen meesha wax laga sixi karo xilligii ugu fiicnaa baa la joogaa laakiin iyaduna dee waxay rabtaa arrintaasina waxay rabtaa in jihayn guud inay jirto dad inay jiraan qaadi kara himada iyo fikradda noocaasa oo potentialka intaa leeg u jihayn kara oo u bedeli kara awood wax qabad actionable ka dhigi kara taasay rabtaa marka dadaalo badan baa Soomaalida si guud inta geeska Afrika Soomaalida ka dhex socda particularly Soomaaliya dadaalo badan oo saasa ka dhex socda maaragtay in daaqada iyo awoodda baahsan ee waliba diyaarka ah in lagu jiheeyay isbedel wanaagsan oo wax qabad leh productive loo bedeli karo anuna codkayga oo meelaha ka maamuqashaan inta uu qaybtiya marka anu waxaan aaminsanahay awood badan baa jirta marar badan dhalinyarada wax loo arkaa problem in different ways laakiin waa potential diyaara oo maaragtay ay tahay xilligii ay actionable noqon lahayd